Safiirka Mareykanka u fadhiya magaalada Muqdisho Danjire Leere Andri ayaa la kulmay qoyska taliya ku-xigeenkii ciidanka kumaandooska danab gaashaanle Xasan Maxamed Cismaan Xasan Tuure oo jimcihii hore lagu dilay weerar ay khawaarijta shabaab ka geysteen degmada Galcad ee gobolka Galgaduud ee maamulka Galmudug. Wasiirka warfaafinta Soomaaliya Daawud Aweys Jaamac ayaa sheegay in weerarkaasi ay dhanka dowladda kaga geeriyoodeen 7 askari oo ku jiro taliya ku-xigeenkii kumaandooska danab. Safiirka Mareykanka ayaa qoyska u sheegay siday ugu hanweynayeen hogaamintiisa marxuumkan geeriyooday si bulshooyin badan uga xoroobaan ayuu qoraalka ku sheegay dulmiga maleeshiyada shabaab. Danjiraha Mareykanka ee Muqdisho u fadhiya ayaa sheegay in tani ay sii xoojin doonto go'aanka Mareykanka uu ku taageerayo ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. Xoogagga danab oo ka tirsan xoogga dalka Soomaaliya waxaa tababara Mareykanka iyagoo saldhigooda ugu weyn uu ku leeyahay garoonka Beledoogle ee gobolka Shabeellada Hoose. Danab waa ciidan lugta oo tababar gaar ah qaba waxaana ay fuliyaan howlgallada qorsheysan ee ka dhanka ah kooxda khawaarijta shabaab waxaana ciidanka la howlgala ciidamada Mareykanka ee fila Soomaaliya ka taageera weerarada dhanka cirka ah oo lagu bartilmaameedsado madaxda iyo maleeshiyaadka shabaab. Wasaaradda gaashaaniga Mareykanka iyo taliska ciidamada Mareykanka ee Africom ayaa shabaab u arka halista ugu weyn ee maanta ka jirta qaaradda Afrika.